dee 200 kun markaan dhayna bixiyo macruur baan biiliyaa mise waxaan biiliyaa dawladda hoose taliya qaybta gobolka Gabiley xidig baa uga dhimatay nimadii soo moogid haddana mootooyinka baaskiilkaas ku murmina waxa allaala waxay geysteen lama yaqaan war ninka qaybta ugu sareeya istilaa ninka ugu hooseeya qablihii wuxuu eeganaya waa bajaajta halkani oo ah dawladda hoose ee degmada Gabiley horteeda waxa saaka cabasho la yimiday darawallada ku ganacsada gaadiidka bajaajta ee ka shaqeeya magaalada Gabiley waxaana ay darawalladani ka cabanayeen dawladda hoose ee degmada Gabiley iyo taliska qaybta booliska ee gobolka waxaana ay sheegeen dhalinyaradani ku ganacsada gaadiidka bajaajta ee gobolka Gabiley in gaadiidkaasi lagu soo dul rogay ganaaxyo aanay qaadi karin isla markaasina sifo sharci darraa looga qaado waxaana ay sheegeen in masaariifta ay guryahooda geeyaan ee ka soo xaroota bajaajta iyo lacagta ganaaxa ah ee ay dawladda hoose iyo taliska qaybta booliska gobolku ka qaadaan ay ka badan tahay ta ay taliska booliska qaybta iyo dawladda hoose ee degmada Gabiley ka qaadaan waxaana ay cabashadoodan ku socodsiiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo la filayo maalmaha soo socda inuu yimaado gobolka Gabiley iyo taliyaha booliska ee Soomaaliland sidoo kale darawalladani ku ganacsada gaadiidka bajaajta ayaa waxa ay sheegeen in ay ciidanka booliska ay kala kulmaan tacadiyo kale oo ay u geystaan waxana yiraahdeen cabanayna dhibaatada laga imanaysa taliyaha qaybta annagu deebida ku cuntaya loo isrooriya waxa laga siiyay nabadana mootooyinka wadada taliyahan qaybta muqaadaraad ma qaadaan amri darrada ma kala ma sameeyaan dadna uga gaxay xoolo ma gaari wali maamulka degmada dadna ka tagay xoolo aan gaarin taasoo waxa intaas oo dhan cabasho u qabla waxay socotaa in 4 toddobaad bal cabasho isku soo celcelina waxa ka horeysay iyagoo qoraal gudbinay waxa ka horeysay hadal aan gudbinay live baa la kulanay saasay isku hortaagna cabasho kasta waa ku hadalay wali hadda baasho way socotaa waxa ka codsanayna hadii maamulkii degmada hadii waxba loo qaban waayay madaxweynaha dalkaan ayaan loo cabanayna madax meel ka shaqeeyo salaxa ma jirto madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa dadka ummadan dadnimadii laga kaxeeyo xoolihiina aan de magaraasa aan xoolo lagu xigta laftiisa loo ogolayn in dad iyo xoolo midna loo ogolayn inuu dib loo hoos loo eego inuu waliba taliyaha qaybta laga qabto maxamed Salebaan goolini kale taliyaha qaybta haysta Gabiley taliyaha qaybta gobolka Gabiley xidig baa uga dhimatay nimadii soo moogid haddana mootooyinka baaskiilkaas ku murmina waxa allaala waxay geysteen lama yaqaan cashuurtan amba ganaaxan laydinka qaadaa ma waxa uu ku dhacaa jeebka taliyaha qaybtaad leedahay mise dawladda hoose degmada Gabiley waa qaadata suuban baa la bixiyaa GR baa loo soo jaraa 200 kun GR ka 200 kun ninka qofka gaadiidleyda loo soo jaraa saldhig waxa laga reebaa saldhiga percentage 90 kun oo lacag ku leeyahay 200 kun taliyaha qaybta waa kan 200 sharci xeer digdiimeed xeer islaami xeer gaal mid ku jira ma garanayno hortaas waxaan keenay waxa weeye waa cadaalad darrada lagu hayaa dib baa halkan keento cumihii markii la qabtay xaqii dambe ka soo baxday xaq hore ku soo ururtay baan halkan nimidnay intaaba dib baa lagu hayay 200 oo kun baa waxa ku raagan dawladda hoose leeyahay soo koosto kala baxa bahari inta door cadal la soo xiro oo waxa loo xasaneeyay ma jirto imaka sharcigeygu dhameestiray sharcigeygu waka liisakii baa ku jira buuggii waka waxa la wax lagu wadambarsi baa iyagu dhisay bajaasta shalay galabtiinta lagu xidhay lagu liisakii kan baa liisakii kan liisakaaga ma shaqeynaya waraaqad 200 kun dawladda hoose ka soo goosay lagu deebaynta dawnu taa waxaan arkay baad cad oo laga doonayo maadaama wax lagu de halka sharci lagu leeyahay aan jirin ya oo waxa waxaan dhimaanay jirin qof ma jirin si xul ma socon magaalada waxa bariis baan u imaaday in bariis ka shaqeysto oo waxa way carruurta ku biiliyo 200 kun markaan dhayna bixiyo macruur baan biiliyaa mise waxaan biiliyaa dawladda hoose oo waliba taliye qaybta noo soo amra soo noo soo wada xidhbahari ya bahali ganaaxa loo wada jaram 200 kun marka la xiro 100 bajaaj 200 kun oo lacag badan lacagta badan waxa weeye taas waxa weeye waa la dhadhamiyay saaka ugu dambeysay 7 jira qaar la soo xidhay anaga xali baan la xidhay waxa weeye de arrinkan meesha ka jira de hoos loo eego cid ay khusaysa waxa weeye ka soo jawaabta arrinkan saasi ma aha waxa weeye wixii ka dagaalamay siyaad bare lagu dagaalamay waxa cadaalad darro imaka cadaalad darradii baa ka jirta marka kan isku dhiibnaa anaguna marka meesha ma furin baa laga dhigaya waxa weeye ilaa marka cumaha laga ruux ka soo sameyn
maana hayni waxa weeye in la sasaayiro oo waxa weeye dadkan gobolka u dhashay waxa weeye xorriyadda la siiyo oo magaalada si fiican uga shaqeystaan ma inaan lagu tutaayo baashinta laga xidho waa kaaga xoog weyn lagu dhaado ora waraaqada soo goos haddii aan idhaahdo maxaa lagu xidhanaa lagu leeyahay gal adiga laftigaagu oo bajaajtada meel la fadhiiso hal su'aal oo keliya ni weydiinaya laga jawaabo war waxaan ni weydiinayaa dawladda iyo askartani xeerna xidho waan leenahay xeerna soo daaya bal maxaan u yeelan weyni waar ninka qaybta ugu sarreeya haysta ilaa ninka ugu hooseeya dablihii wuxuu eeganaya waa bajaajta halka su'aalan weydiina haddaan si sharaf intaan u istaagno na qabtaan kula maxaad nagu xidhasaana bis waa 200 laana keen waa 200 laana anagu toddobaadkii baan hal mar helnaaye inta ilaahay laga boqoniyo aan la soo gaadhaniyo si maahe